Ciidamada ammaanka ee gobolka Banaadir ayaa howlgallo kala duwan waxay ka sameeyeen magaalada Muqdisho. Howlgalladaas ayaana waxay ahaayeen kuwo amni xaqiijin ah ay ku xaqiijinayeen amniga degmooyinka gobolka Banaadir iyo guud ahaan caasimadda. Ciidamada booliska iyo nabad sugidda qaybta Weliyo Cadde ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey qaybo ka mid ah gobolka Banaadir iyo degmada Howlwadaag, iyadoona sidoo kale lagu soo qabtay dad looga shakiyay inay liddi ku yihiin amniga caasimadda. Ciidamada ayaa baaritaano guri ah sameynayay, iyagoona mararka qaar baarayay gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Waxaana howlgalkan hogaaminayay saraakiisha ciidamada booliska iyo nabad sugidda qaybta Weliyo Cadde. Taliye ku-xigeenka ciidamada booliska qaybta Weliyo Cadde howlgalka faahfaahinayay ayaa sheegay in ujeedka howlgalka uu ahaa xaqiijinta amniga, iyagoo fulinayay amarkii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maadaama ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan. Sidoo kale wuxuu ugu baaqay shacabka Muqdisho in ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga si looga guuleysto kuwa liddiga ku ah amniga ee dilalka ka geysta iyo kuwa dhaca dadka shacabka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. sheegnaba howlgalkan wuxuu daba socdaa xaqiijinta amniga maadaama bishii barakeysneed nagu soo fool leedahay waxaan u diyaar garoobaynaa inaan ammaanka caasimadda inaan sii bilowno maadaama madaxdii ugu sareysay amar ay baxsheen sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in bisha barakeysan loo diyaar garoobo sugidda amniga dadka muslimiinta ah oo cibaadeysanaya in ay nabad ku soomaan nabadna ku afuraan. sidaas darteed howlgalkan degmadan kaliya kaba socdo, wuxuu ka socdaa dhammaan degmooyinka magaalada Muqdisho dhan iyo qaybaha kala duwan. sidaas darteed waxaan codsanaynaa sida madaxdu ay sheegeenba dadka shacabka ah inay garab istaagaan laamaha amniga si looga guuleysto dadka nabadiidka ama qowleystada burcadda iyo tuugadaba intaba in shacabka ay nala shaqeeyaan si dhow noola shaqeeyaan. Howlgalkan ay ciidamada ammaanka ka sameeyeen magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii la soo dhaafay laga deerinayay amniga caasimadda guud ahaanba, isla markaana ay dhaceen weeraro iyo dillo qorsheysan oo ay sheegteen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Weeraradaas ayaana waxay ka dhaceen qaarkood magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta badan ciidamada ammaanka ayaa waxa ay sameeyaan howlgallo kala duwan oo amni xaqiijin ah. Howlgalladaas ayaana inta ugu badan waxa ay kaga soo horjeedaan kooxaha liddiga ku ah caasimadda iyo sidoo kale Al-Shabaab oo weerar ka fuliya mararka qaarkood magaalada Muqdisho.